xalqadan waa xalqadii koowaad ee duruusteena xajka. duruusteenan aan soo jeedin doonaa waxay ka koobnaan doonaan 8 qodob oo muhiima. qodobka koowaad fadliga xajku leeyahay, qodobka labaad arkaanka xajka, qodobka saddexaad waajibaadka xajka, qodobka afraad muxaramaadka xajka, qodobka shanaad qofkee bay ku waajibaysaa xajka inuu xajiyo, toddoba qodobka lixaad mawaaqiidda ama zaman ha noqoto ama makaan iyo boos ha noqotee mawaaqiidda xajka uu leeyahay, toddoba noocyada kala gedisan ee loo xajiyo oo saddexda ah, 8 ziyaaratu masjid nabawiyi sala allahu calayhi wasalam, ziyaarada masjidka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo aadaabteeda, 9 waxa kaleeto aynu ku gebagabayn doonaa haddii xaajigu uu yahay mutamatic cumrada uu qabanayo iyo acmaasheeda. sidoo kale 8 waxaan ku gebagabayn doonaa xaajigu hadduu yahay xaaji nooca mutamatica ah in xajka acmaasha uu samaynayo in aynu ka hadalno. 8daa qodob baynu insha allah bitafsiil uga warrami doonaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. ilaahay wuxuu ku waajibiyey dadkii xaj iyo aadid la aado beytka ilaahay, laakiinse waa qofkii awood kara. cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu wa cabdullaahi bni cumar bn khadaab wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul, waxaan maqlay nebi maxamed oo odhanaya buniya alislaamu calaa 5, islaamka 5 baa lagu dhisay: shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah, wa iqaami asalaah, salaad oo la ogo, wa iitaa'i zakaah, sakadii oo la dhiibo, wa sawmi ramadaan, wa xaji lbeyti, beytkii ilaahay oo la soo xajiyo, wa sawmi ramadaan, iyo bisha ramadaan oo la soomo. xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey. xadiid kale oo fadaa'isha xajka ku saabsan min xadiid abi hurayra radia allahu tacaala canhu, oo weliba xadiidkaasna bukhaari iyo muslimba ay wariyeen. abi hurayra wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul, waxaan maqlay nebi maxamed oo odhanaya man xaja falam yarfuth walam yafsuq rajaca ka yowmin waladathu ummuh. qofkii xajiya isagoon hadaltiro la imaan, fisqi iyo daacad ka bixid aan la imaan, qofkaasi wuxuu soo noqonayaa oo gurigiisii u soo noqonayaa sidii isaga oo hooyadiis ay dhashay oo kaleeto dunuubka ah. xajku wuxuu leeyahay arkaan, xajku wuxuu leeyahay waajibaad, xajku waxa uu leeyahay sidoo kaleeto waxyaabo muxaramaadka ah qofka xaajiga ah. xajku wuxuu leeyahay mawaaqiit iyo meelo laga xajiyo. yayse ku waajibaysaa ayadana qodobka muhiim oo labaad baan ugu talagelaynaa. waxaan leeyahay arkaanta xajku uu ku dhisan yahay waa 4. 1 alixraamu min almiiqaat, qofku inuu ka soo xarmado miiqaadkii. meel walba oo miiqaadka ka mida markii uu joogo inuu soo xarmado jihada uu kaga yimaado xaramka. 2 alwuquufu bicarafa, in uu istaago maalinta carafaad. 3 dawaafu lifaada, in uu kacbada 7 jeer ku wadeego dawaafka dawaafulifaadaha la yidhaahdo. 4 assacyu bayna safa walmarwa, 7 goor ama 7 shawd inuu u kala cararo labada buurood ee safa iyo marwa la yidhaahdo. 4taasi waa 4 rukni oo aasaasiga ah ee xajka uu u baahan yahay, laakiin culimmadeenna shaaficiyadu waxay ku daraan alxalqu waataqsiir, qodob shanaad oo yidhaahdaan inuu qofku timihiisii xiiro ama inuu timihiisi gaabiyo. waxaan u gudbaynaa waajibaadka xajka. waajibaadka xajku waa ilaa iyo 7. 1 waxa ah alixraamu min almiiqaat, qofku inuu ka soo xarmado meeshii iyo makaankii loogu talagalay inuu ka soo xarmado hadba jihada uu kaga yimaado maka. 2 miiqaat bimusdalifa,
إن uu baryo qofkaasi habeenka tobnaad musdalifa 3 ramyul jimaar inuu qofku jamaraadka gamto 4 xalqu ra'si inuu madaxiisii xiiro 5 dhabxul hadyi hadigii inuu gowro hadduu qofkaasi mutamatic yahay 6 almabiitu biminan habeenada bogcadda mina la yiraahdo iyo makaanka mina la yiraahdo la baryayo inuu qofku baryo 7 dawaaful wadaac inuu la yimaado dawaaful wadaac arkaan waxa la yiraahdaa wixii qofka looga baahnaa hadduusan la imaan camalkiisi uu jabayo oo wax kale oo lagu kabi karaa aysan jirin waajib ama waajibaadna waxa la yiraahdaa wixii qofka haddii intuu ka tago ay ka dhacdo ay suurtoobi karto in la kabo marka acmaashan waajibaadka haddii qofku intuu ka tago مثلا waxa laga rabaa calayhi dam dhiig inuu qubo oo uu gowraco hadyi beydka ilaahay ama haddii uusan kari karin in uu soomo 10 maalmood in uu soomo waxa kaleeto inuu u sii gudbaynaa muharramaatul xaj xajku waxyaabaha xaaraamta ka ah ama mamnuuca ka ah kow waxa xaajiga mamnuuc ka ah oo xaaraam ka ah qasu shacri timihiisii inuu gooyo 2 waxa kaleeto ayadana xaaraam ka ah qasul adaafiri timaha aan sheegayno meeshay doonaan ha ku oolaadaan ama madaxa ha ku oolaadaan ama hoos ha ku oolaadaan ama kilkiladiisa ha ku oolaadaan timo in la jaro waa mamnuuc waqasul adaafiri waxa kaleeto iyadana mamnuuc ka ah cidiyihii in la jaro sidoo kaleeto 3 waxa qofka xaaraamka ah qiibkii inuu isgudgiyo inta uu qofkaasi xarman yahay 4 waxa kaleeto qofka xaaraamka ah khaasatan ragga libsul maqiiti dhar tolan in uu qofkii labisto sida shaar sida surweel sida nigis hoos laga gashado sida garan hoos laga gashado waxyaabaha tolan oo dhan ragga mamnuuc bay ka yihiin sidoo kale dumarka iyaga laftoodana waxa xaraamka ah dhinaca xajka marka la joogo wajigeedii inay qariso oo ay indha shareer ku dado sidoo kale waxa xaraamka ah libsul ghafaafis in ay gashato waxyaabahan gacanta la gashado sida goloofiska waxa kale oo ragga iyo dumarkaba ka xaraam noqonaysa kabaha oo kale inay gashadaan kabaha buudka ah waxa la gashan karaa dacas ama kalma saandan oo hore u gasho la yiraahdo ama hore u ila la yiraahdo 5 waxa kale oo waxyaabaha xaraamta ka ama muharramaadka xajka kamida madaxiisi inuu daboolo taqdiyatu ra's xaajigu markii uu soo xarmado ama qofka mu'tamiri markuu soo xarmanayo madaxiisi waa qaawinaya 6 waxa kale oo ka xaraam ah qatlu saydi haddii uu qofkaasi berri marayo ugaartii berriga xaraam bay ka noqonaysaa 7 waxa kale oo xaraam ka noqonaya qofkii aqdu nikaax ama isagu inuu wax nikaaxiyo ama isaga in loo nikaaxiyo labadaba uma banaanaan doonto 8 waxa kale oo xaraam ka noqonaysa waxa la yiraahdo aljimaa xaaskiisii intuu u tago xubin la geliyo 9 waxa kale oo xaraam noqonaysa mubaasharatu nisaa dumarkii in lala baashaaro haddii qofku uu ku dhaco arrimahan calayhi dam waxa laga rabaa qofkaasi dhiig inuu gowraco geel inuu qowraco